ma arkaysaa sida loo soo qorsheeyo amuun iyo quruxda ka muuqata. mana dadku ka xadayn luulkeeda dahabka lagu soo wada sharaxay. maya cidna ma xadiso oo kaahinada ayaa ilaalinaya. waa cajiib sanam la ilaalinayo. markii hore waxaan moodaya amuun in isagana ilaalinayo. imka amiga waxaad leedahay isagu isma ilaalin kara ee kaahinada ilaaliya. oo maxaa ku jaban? amuun waa shayga keliyaan leenahay, marka inaan ilaalino waajib baa inaga saaran. waxaad leedahay sanamkaasay reer Masar oo dhan caabudaan. oo miyaadan arkayn? haa, laakiin siday u caabudayaan sanam iyo dhagax iyo dhooqo laga sameeyay? amuun maaha dhagax, waa ruux aan ku cibaadaysano. amuun isma ilaalin karayo, ma labisan karayo, dhar ma xiran karayo, tuugta iskama celin karayo. isagu waa in naftiisa la ilaaliyo, laakiin inagayna ma ilaalin karayo. wuxuu u baahan yahay wax umaydha, wuxuu u baahan yahay wax dhar xidhan, laakiin isagu naftiisa kuma filna. sidaad u caabudaysaa markaas waxaan isku filnay? waxaad leedahay amuun ma anakaa ka fiican? waa meedhan karnaa, waxba cuni karnaa, waa is ilaalin karnaa. maxay kula tahay adiga? waa yaabanahay inanka yar, hadalkiisa iyo da'diisu isma laha. hadalla xigmadaysan buu ku hadlayaa, xitaa shaki buu iga geliyay ilaahnimada amuun. ha ka warwarin, anaa yuusar siif kaxeen doona oo soo bari doona caqiidada u taara reer Masar. si fiican u maqal waxaan ku leeyahay, shaki weyn buu iga geliyay ilaahnimada amuun. waa wiil aad iyo aad cajaa'ib u ah hadda. miyaana la gaarin wakhtigii cuntada? gaajo aad iyo aad u weyn bay haysaa. aawo kale waxaan dhammaynayaa xabad lo' ah. mudane cuntadu waa diyaar.